بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan rabnaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 20kii bishii 8aad 2023 inaan halkan hadal yar oo kooban aan uga soo gudbino dadweynaha Soomaaliyeed ee degan caasimadda Soomaaliya gaar ahaan barnaamijyaashii maanta barnaamijka ka sameeyay magaalada Muqdisho saan la wada soconaba dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u banaynayaa barnaamij nabadeed shacabku inay barnaamij nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda waxaasan aan mamnuuc ka ah barnaamij rabshado wato sidaa darteed barnaamij in wax lagu gubo wax lagu burburiyo anti umadeed lagu baabi'iyo wadooyinkii aan $1 dalka ku dhisaynay shacabku iska kaashanayeen oo ayagu ay qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laabto shacabka magaalada Muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin waxa danta guud ah dadka iska wada leh shakhsi ma laha sidaas la mid ana shakhsiga Soomaaliga ama muwaadinka Soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo asagana in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas'uuliyad ka saaranta marka sidaa darteed waxaan leenahay barnaamijkii maanta wixii ku halaabay waxaan aaminsanahay in maaragtay ahaday wax laga kabsan karay ama laga maarmi karay waxaan ognahay muwaadinka Soomaaliyeed ay sababtiisa barnaamijka loo sameeyay gacanta dawladdu ku jiriya gacan cadow kuma jiriyo dawladuna waxa waaye wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay wuxuu sharciga ka helay ayuuna helayaa ugu mana horeeyo ugu mana dambeeyo ugu mana dambeeyo cid kasta oo muwaadin ah Soomaali ah ee dawladda ay aado waxaan aaminsanahay inay ka warsugaan ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu ka helo sharciyadaas ayaan aaminsanahay garsoorka iyo hay'adaha amniguna waxaan aaminsanahay inaysan ku xad gudbi doonin sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaar ah ma laha qof gaarana ma laha Soomaaliya oo dhan oo ka dhaxeeya marka inaan ilaalino sharcigana waa laga maarmaan si uu nooga halaabin waxna aysan nooga halaabin sidaas la mid ah waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guud ahaan ugu baaqayaa dhacdo kasta oo dhacayso marka ay dhacayso in qofku oo aysan aqaliyada aysan naga wada tagin ay foojignaan aan muujino si aan u badbaadino maaragtay ummadayna iyo hantidoodaba inaan u badbaadino waxaan ogsoonahay maanta jidad badan wax baa u gaargaaray maaragtay hanti badan wax baa gaargaaray sida la sheegayo taasna waxaan rabaa gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir oo horkacaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayaga ay wax ka dhaceen wixii maaragtay burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si degdeg ah nadaafad wax looga qabto ayaan taas soo jeedinayaa ayagana gudoomiyaasha degmooyinka haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo leeyahay aan sharciga ku kalsoonaano aan sharciga sugno wax nooga halaabi doono ma jiraan haddii Ilaahay yiraahdo marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaano sharciga aan u hoggaansanaano dawladnimaduna waxay ka wada dhaxaysaa shacabka annaga naga wada dhaxaysaa inaan ilaashanana annaga nagala rabaa wax kasta oo wuxuu dhimaayna dawladnimada inaan ka hortagno annaga nagala rabaa marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiye gobol Banaadir ahaan iyo ka duq magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayna haddii aan dahno wax baan ku xalinaynaa gacmahayna wax ku xalismi maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane marka sidaa darteed jihooyin kale ama dariiqyo kale oo badan oo la maraa la heli karaa kuwaas aan marno oo aan ku raadino waxa la waxaan rabno waa ku gaari karaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh